madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna kusimaha madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa uu soo dhaweeyay isla markaana uu tilmaamay in wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya u socda ay yihiin kuwa u gobol xaadaya sidii ay Somaliland u noqon lahayd qaran madax bannaan. madaxweyne ku-xigeenka oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya runtii waxaan arkaa mid meedhal fiican ah sababtoo ah waxaan ku ka talaabo ka bilaabmaan wadahadalkuna waqtigu iska qaadanaya waxaynu bilownay ama aynu barnaynay ama aynu wadadii aanu xaadnay sidii loo Somaliland iyo Soomaaliya mustaqbalkooda u tashan lahaayeen taasoo kar Somaliland ahaan maadaama shacabku doortay ama ay tahay in arrin shacabku go'aansaday in Somaliland xornimadeeda 60kii ay walaalahooda la tageen inay la soo noqdaan ujeedadooda halkaan ka leenahay waxay tahay sidaan taa u gaadhi lahayn in walaaliheen laba dawladood oo walaalaa noqon lahayn iyaynu jidka u xaadhinaa jid kasta oo la marayna qodax badan buu leeyahay qodaxdaas inagoo gur lahayn waxaa loo baahan yahay inaan si wada jiraan uga wada shaqaynee inaynu maartay inagu isku hor nimaadno ama aynu ku tafaarayno talada maartay meeshaan u soconno